إن أولا وإذن سلامي سلام كسو قوضي كشكي إيه لابتا أسحبتي دقاليقة وإيقو حيران إن أدبر إذن سلامي سلام كدب إن أرنتا مسيدان فيليني مسيدا إيه نقطي مسيسيان لو نقون دونين با كنتي waxaan filaynay iyo waxa imaaday waa kaaf iyo kardheeri shalay anaga sheekada ciyaar iyo baashaal iyo kaftan iyo qaraaxo ay iska ahayd maanta sheekada meeshay aaday iyo meesha ay joogto adinkoo dhan wada ogtihiin horta wiilo aniga waan ka qaldanahay inaan shakhsiyadeeda u gafamay ahayn inaan erey qaldan dhaha ma ahayn laakiin wax walbo wax ayay ku imaadaan wax la iska dhahay adduunyada ma jirto wax walbo wax lay ku imaanayaan sabab la'aanna wax ma dhacaan aniga walaashay indhaha caalamka oo dhan markay ku soo jeesteen subscribe-ka lagala laabanayay way soo wacday waxay dhahday dhib ay haysto waxaan rabaa dhibkaas iyo dadka indhahooda inaad iga jeediso laba qof oo saaxiib baan nahay hadalkii si fiican u dhageysta qofku way aragga ah hadalka markii la bilaabo ayuu fahmi karaa meeshuu ku dhamaanayo markaas waa wacay iyo waran seeta waa fiicanahay maxaa waa dhib ku haysto saas ay ugu dhacday maxaan sameynaa waxaan dhahay inaan saas samey ahayn aniga waa maqlay laakiin dhib ma lahan dhahay labadaba maalin lee waayo kadib arrintu iska hagaagaysaa waxay idhaahdeen meesha qorshe iga soo baxay adiga hal mar haddaad isoo qasto isoo canaanato waxaa macquuladka indhahooda inay iga jeestaan iyo adiga dhankaaga u soo jeestaan waayahay isla markii aniga iyo mursal iyo saadaam adii asxaab badanaa wada fadhinay geemaan iska cayaareynay arrintii aan u sheegay okay way dhaheen haddii walaashaaba xoogaa aad ka badbaadinaysid dhibaato ma lahan u sameey waxay rabto bas fideogiaan duubay markii video la duubayo oo qof la difaacayna oo waa iska taqaanaa adi hadal afkaaga uu ka soo baxa binaadana tahay anigana shakhsiyadeeda u gafamay ahayn meel laga qaato ma lahan inaan dhahana waan ku qaldanahay waan ka raaligelinayaa 1,000 jeer anigoo iyada danteeda fiirinayo si indhaha ay ugu jeestaan ayaan arrintii sameeyey arrintii falcelin qaldanaa ka imaaday dadka aragtidooda way kala duwan tahay qofna hadalka waxaa layidhi si u dheh qofna si u qaaday aniga markaa hadalka aan sas dhahayay oon kululeynayay waxay iga ahayd hal mar gabadha ka soo wada jeesta wixii iyada ka maqana hawada helaan dadkii dhanna hadhaha muxuu gabarsaan u dhahaa muxuu kan u dhahaa si waxeeda iyada ay ugu laabtaan intaas waxaan sameynayay inaan saaxiib difaaco wixii iyada kusoo socdana dusha aan u dhigto aniga weligeena ma aflagaadeenin weligeena inay qaldan ma dhihin wax badanaa isnaqaanaa wax badanaa isla soo sameynay wax badanaa isla duubnay wax badanaa meel wada joognay weligey kuma xadgudbin weligey si qaldan ulama hadlin tanna waxay ku imaaday sababtaas darteeda wayba dhacdayba iga raali noqo 1,000 jeer waan kuu gafay waan kugu gardarooday anigoona ku difaacay la dhacday midaas mana iga ahayn xumey amaba jaanisa ku heshay gabadhee waxa rabta ku samee wallaahi igama ahayn oo bilaahi igama ahayn oo tallaahi igama ahayn qof walba qalbigiisa ilaahi subxaanahu watacaala ayaa daalacanaayo tan labaad oo ah taageerayaasheenna dadka garabkeena taagan asxaabteena oo arrintan ka gubtay ka xumaaday ka qoobameeyey ka shalaayay weliba waxyaabo badan soo qorayeen ayaan rabaa iyaga inaan la hadlo adinkana iga raali noqdo asxaabteyda shacabkeyga faniskeyga taageeraheyga waa idin jeclahay waxa aan sameeyey wax fiican ma ahan gabadha waxaan ku tilmaama wax fiican ma ahan laakiin adigoo saaxiibkaaga badbaadinaya haddii qalad uu kaa dhaco in la fiiriyo ma ahan dadka waxay sameeyaan caaqilka ah markii qofka asagoo wanaag sameynaya qaladka uu ka dhaco way daboolaan laakiin dad waxaa jiraan ka faa'iidaysanayaan xumaan u bedelaayo qofka ku dhibaateynayo ilaa iyo ka dhigaayo in jir ka mid ah cadkeeda in la jarayo kala ka dhigaayana way jiraan koley aniga wiilo dad oo laba eray ama hal eray ku kala haraya manihin 1,000 jeer madaxa meel ka sareyso biniaadan laga taabto ma jiro madaxa korkiisaan kaa taabtay walaasheedii iga raali noqo reerkaagana waan raaligelinayaa walaalahana waan raaligelinayaa
gabar aniga waan ogahay qiimaha ay leedahay, waan ogahay qadarinta ay leedahay. gabar waan dhalay, way ila dhalatay, waan qabaa, way i dhashay, qiimaha ay leedahayna waan dareemi karaa. wiil gabar dhalatayna marka wax laga sheego waan dareemi karaa marxaladda uu galaayo. walaalkaygii oo iga raali noqo, walaalka kaa weyn oo gafayaan ahay, iga raali noqo. iyadana 1000 jeer ayaan raali gelinayaa. dadka ka kululaaday inaan ereygaas dhaho oo maanta dhan qeylinayna dhammaantooda waxaan idin leeyahay adinkana raali noqda dhammaantiina. hadalka in la jiido waxa ka fiican in lasoo afjaro. xumaanta waxa ka fiican wanaagga. xumaanta inta badan ma raagto, laakiin wanaagga wuu raagaa. laakiin xumaanta wasaqda ay rabto mararka qaarkood wax tirmaayo ma ahan. marka kulley aniga waa i taqaanaan, weligeena waxaan ahay qof agtiina joogo, saaxiibkiina ah, idin sheekeeyo, isla kaftantaan, wax walbaan isdhahno, kaftan aan u qaadan jirnay. laakiin hadalkii xoogaa meel qaldan iska galay. tasra ajirkeeda midaas ku imaaday. dhammaantiina waa idin raaligelinayaa. qof walbaan raaligelinayaa. shaksi walbo arrintan ka kululaadayaan raaligelinayaa. shaksi walbo gabadha soo damqadayaan raaligelinayaa. bini aadanka easy waaye inay qaldamaan, easy wax yar waaye, wax yaroo afkaa ka soo baxay dib uguma laabanaya, laakiin saameynta u geysto ayaa waxaa macquula meel weyn in ay gaarto. marka anigana waa dareemi kartiin anigoo iida difaacayo oo qaladkaas afkayga ka dhacay. taas la ajligeeda waxaan idin leeyahay 1001 jeer, malaayiin jeer, 100 jeer iga raali noqda. asxaabteeda adinkana iga raali noqda. codsi waaye, arrintaa inay sii socota ma doonaayo. bulshaweynteeda aniga meeshasaan ugu baxay. qof kastoo wax isoo dhahana lagama yaabo inaan erey qaldan uga bedelo. ma fahanteen? waxaan intaas u samaynana waxa ay tahay in anigaba shalay wanaageeda aan raadinayo, maantana wanaageeda aan raadinayo. aniga ma jecel qof binaadan inaan xumeeyo, ma jecel qof binaadan inaan ku xadgudbo, ma jecel qof binaadan inaan ku gardaroodo. wixii way dhaceen, si u dhaceen lama dhehe see looga xaaltamayaa lahaa. qofka caaqilka ah waxaa lahaa qalad markii uu galo qaladkiisa wuu qirtaa. marka walaasheeda wiilo, adigii ehelkaaga iyo qaraabadaada iyo asxaabtaada iyo taageerahaagaba waan idin raaligelinayaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad baad u mahadsantihiin. igana raali noqda, malaayiin jeer iga raali noqda.